magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay shir ay isugu yimaadeen golaha axsaabta siyaasadda ee Soomaaliya oo gabagabadii ka soo saaray warmurtiyeed iyo baaq ay beesha caalamka iyo bulshada Soomaaliyeedba ay u jeediyeen. baaqaasi ayaa waxa ay uga hadleen xaalado dhowr ah oo uu dalku marayo. waxyaabihii ay ka hadleenna waxaa ka mid ahaa arrinka ku saabsan shirkii wadatashiga ee Muqdisho ka qabsoomay bishan September aynu wali ku guda jirno. sidoo kale waxyaabaha ay isla soo qaadeen warmurtiyoodkoodana ku jiray waxaa ka mid ahaa arrinka ku saabsan mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha jamhuuriyadda ee horyaala baarlamaanka Soomaaliya. warmurtiyeedkii ay soo saareen waxaa ka akhriyay madasha gudoomiyaha xisbiga kulan Cabduqaadir Maxamed Cusmaan Cabduqaadir barnaamij waanu daawan doonaa kadibna waxaanu dib ugu soo laaban doonaa martideena caawa oo noqon doona ambassador Axmed Macalin Fiqi oo ah xogayaha guud ee xisbiga Daljir sidoo kalena xubinka ah madasha axsaabta siyaasadeed ee Soomaaliya. golaha xisbiyada Soomaaliyeed oo ah gole ay ku bahoobeen inta badan xisbiyada dalka ka jira shir ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa ka wada hadlay xaaladda dalku marayo madasha wada tashiga qaranka mooshinka ka yaala madaxweynaha iyo aragtida xisbiyada Soomaaliyeed ee ku aadan 2016 xaaladda dalka uu marayo golaha xisbiyada Soomaaliyeed waxay dareemayaan in dalka Soomaaliya dhan kastaba uu marayo heerkii ugu hooseeyay muddadii 3 sano ahayd ee uu xilka hayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. shacabka Soomaaliyeedna ay la soo diristay rajo xumo iyo niyad jab madax banaanida iyo karaamada shacabka Soomaaliyeed dhaawac weyn gaaray taasoo ay sabab u tahay hoggaanka Soomaaliya oo jilicsan iyo faragelinta shisheeye ee ciidan iyo siyaasadeed oo qaawan. inta damiirka lehna dareensiinaysa in dalkii uu ku socdo in uu gebi ahaanba ka baxo gacanta Soomaaliyeed uuna galo gacan shisheeye arrimahaasoo lagama maarmaan ka dhigaya in loo baahan yahay in shacabkeenu baraarugo. 2 madasha wadatashiga qaranka ee shirka ku lahayd Muqdisho 19 ilaa 21 September 2015 golaha xisbiyada Soomaaliyeed waxay u arkaan madasha wadatashiga qaranka mid aan ka mid ahayn hay'adaha dastuuriga ah taasoo ah xadgudub ku ah dastuurka federaalka dalkana ku celinaya dawlad aan rasmi ahayn oo la mid ah xilligii ku meel gaarka ahaa ee laga soo gudbay iyo jahwareer siyaasadeed oo cusub. xubnaha madasha wadatashiga qaranka ka tirsan waxay u muuqdaan kuwa jilaya xilligii qabqablayaasha ee laga soo gudbay. madashana waxay afduub cad ku tahay hay-adihii dastuuriga ahaa sida golaha wasiirada iyo baarlamaanka federaalka ee sharciga ah. golaha xisbiyada Soomaaliyeed wuxuu cadeynayaa in madasha wadatashiga qaranka uu laalayo doorkii shacabka Soomaaliyeed ururada bulshada rayidka ah xisbiyada Soomaaliyeed iyo aqoon-yahanka ay ka qaadan lahaayeen horumarinta siyaasadeed taabadalkeedna ay shisheeyaha ka soo qayb galay shirka saameyn ballaaran ku lahaayeen shirka iyo talooyinka ka soo baxay loona socdo in dalku gacanta u galo laguna hago talo shisheeye. 3 mooshinka ka yaala madaxweynaha Soomaaliya golaha xisbiyada Soomaaliyeed markay falanqayn dheer geliyeen mooshinkii xildhibaanada iyo qoraaladii isdaba jooga ahaa ee gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Cusmaan Jawaari ee ku aadan mooshinka waxaa inoo soo muuqatay in gudoomiyaha baarlamaanku ku fashilmay hogaaminta baarlamaanka isagoo cuuryaamiyay habsocodkii howlaha baarlamaanka isla markaana kala dhantaalay midnimadii iyo wada shaqayntii xildhibaanada qaranka ugu dambayna wuxuu jibiyay dastuurkii iyo xeer hoosaadkii baarlamaanka qaranka. 4 aragtida xisbiyada Soomaaliyeed ee ku aadan 2016 golaha xisbiyada Soomaaliyeed iyagoo diiradda saaraya in siyaasadda dalka la hormariyo sanadka 2016 ayna suurtagal noqoto in dalka uu ka dhaco isbedel siyaasadeed oo ku yimaada doorasho xor ah oo xalaal ah waxay isla qaateen in meel looga soo wada jeesto in aysan dhicin muddo kororsi lagu sameeyo hay'adaha dawladda taas oo aan ku dhisnayn doorasho xor ah oo xalaal ah. tan labaad in si ula kac ah loo hor taagan yahay xeerka xisbiyada oo qabyo qoraalkiisa uu diyaar yahay iyadoo farta aan ku fiiqayno golaha wasiirada oo uu ugu horeeyo xafiisyada ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha
sababtana ay tahay in madaxda dalka oo aan rabin in horumar siyaasadeed uu dalkan gaaro iyagoo doonaya in ay dalka ku maamulaan rabitaankooda ah in ay xukunka si sharci darro ah isaga haystaan isla markaasna cabsi ka qaba tartan xalaal ah oo ay la galaan xisbiyada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa baarlamaanka Soomaaliya in baarlamaanku mooshinka ka yaala madaxweynaha qaab dastuuri ah u maamulaan waqtigana aan lagu lumin waxaan gudoomiyaha ugu baaqaynaa in jahwareerka baarlamaanka uu geliyay ka saaro isagoo danta qaran fiirinaya labo amisom iyo dalalka dariska waxaan ugu baaqaynaa in ay joojiyaan tacadiga iyo xadgudubka xuquuqul insaanka ah ee ay shacabka ku hayaan waxaanan diidanahay qaabka howlgalka ciidamada amisom uu u socdo iyagoo meesha ay qabsadaan dhimasho iyo dhaawac kadib sabab la'aan uga baxayo waxaan ku baaqaynaa in amisom la timaado istiraatiijiyad ay dalka ugu baxayso dawladeennana la timaado qaabkii ciidanka qalabka sida ay ula wareegi lahaayeen amniga qaranka beesha caalamka Soomaaliya waa dal xor ah oo ay leeyihiin dad xor ah kana baxay ku meel gaarkii waxaana lagu hayaa faragelin qaawan oo dhibaysa danta qaranka faragelinta waa mid ciidan mid boob lagu hayo khayraadka dabiiciga ah ee dalka iyo ku xadgudub xuduudaha dalka ee badda berri iyo hawada sare waxaan ugu baaqaynaa in la joojiyo sida ugu dhaqsida badan faragelintaas afar xisbiyada siyaasadeed iyo shacabka Soomaaliyeed in xukuumaddu u gudbiso golaha shacabka xeerka xisbiyada si loo ansixiyo sida ugu dhaqsida badan sida uu qodobka 22 ee dastuurka Soomaaliya laba waxaa la joogaa xilligii loo midoobi lahaa si looga badbaado qataraha ku wajahan dalka iyo dadka oo ay ka mid tahay faragelinta shisheeye iyo hoggaamada cabdiqaadir barnaamij gudoomiyaha xisbiga kulan oo warmurtiyeedkii golaha axsaabta Soomaaliyeed maanta ka soo baxay shirkoodii saxaafadda u akhrinayay ayuu ahaa haddii aanu ku soo laabano stuudiyaheena magaalada Muqdisho waxaa iminka si toos ah khadka uga jira ambassador Axmed Macalin Fiqi oo ah xogayaha guud ee xisbiga Daljir sidoo kalena xubinka ah golaha axsaabta Soomaaliyeed ku soo dhawo barnaamijka dabagalka wararka ugu horeyn warmurtiyeedka aad maanta soo saarteen cid uu ka tagayba maysan jirin marka cid walba ma eedeysan tahay waa mahadsan tahay waxa weeye marka mustaqbalka Soomaaliya mugdi ku jiro xaaladuna ay marayso khatarta hadda muuqato hadda ay ka dhawaajinayay walaalkan Cabdulqaadir ama golaha axsaabta baaqoodii uu ka dhawaajinayay marka aan la garanayn jihada loo dhaqaaqayo marka aan la garanayn cidda go'aamada iska leh saxda ah oo dalkan lagu badbaadinayo ama hanaankiisa siyaasadeed lagu hagayo markaas waxa weeye eeda looma kala harayo eeda waa la wada leeyahay waliba shacabka Soomaaliyeed baan ka reebnay oo iska aamusano isagu wax kasaaba dushiisa ay ku dhamaadaan marka eedu waxay noqotay midaan loo kala harin qolo walbaana qaybteeda ay ka qaadatay waxayna muujinaysaa runtii in arinta ay ka dhawaajinayaan golaha xisaabtu yahay wax saxa dareenkii dadka Soomaaliyeedna inuu yahay marka taas waxay keentay in cid allaaliya inaan cidna looga aabiyeelino maalmahan oo dhan waxaan arkaynaa Soomaalidu ay haysato kaligood laakiin dadka kale u cudur daaraysa anagu looma cudur daarin dhammaantood waa la soo wada geliyay wixii eedaas aan ku tuhmeynay ama wixii eedaas lahaa arrinka ku saabsan madasha wada tashiga oo 22kii bishan magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay waxaad moodaa in xoogaa horumar ah uu jiray oo ugu dambeyntii wax uun la isla gartay walow dad cabanayay ay jireen bilowna ay u ahayd sidii wadanku uu u dhaqaaqi lahaa geedi socodka 2016 la hiigsanayay maxaad ku diidan tihiin maxaad ku dhaliilaysaa waa mahadsan tahay dadka Soomaaliya inay wada tashadaan waa midda dhawaaqan tirada badan naga keenaysa in loo daayo waliba taladooda iyaga waa midaan ku adkaysanayna walina ku taaganahay dawladda hadda Soomaaliyeed ay jirtay intaanan madasha u soo galin ka hor waxa kaliya oo laga filayay waxay ahayd tan iyo carta talada Soomaaliya waxa looga meerinayay dibadda in bagaata ha u darnaato barigii u dambeysay road mapkii 2011 iyo 2012 socdayna ha ku xigo dhammaan waxay ahaayeen tala dadka
soomaalida gacantooda aan ku jireen waxaan tuhmaynaa anagu oo waliba xaqiiqo ahayo cadeymaheedii aan hayna madashan wada tashiga curinteedii iyo hal abuurkeedii muusikadeedii iyo laxankeedii wuxuuba Soomaali male luqayntay Soomaalidu leedahay codkay qaadaysa heestay qaadaa heesta madasha wada tashiga la yiraahdo Soomaalidu qaadaysa marka wax Soomaali leedahay maahan dawladda hadda joogtana wax looga fadhiyay wax ka duwan 2012kii shayga kaliya inay qabatay maanta ay ku guuleysatay ay ahayd waxay ahayd dawlad Soomaali leedahay boqolkiiba boqol oo aan afkaarteeda banaanka laga soo curinayn oo cad inay banaanka soo dhigtay ahayd madashan wada tashiga raayigeeda waxa iska afar safiiro ajnabi ah wax shaqa Soomaali kuma lahan dawladda Soomaaliyeed kuma lahan madaxweynaha Soomaaliyeed inuu hafra maahan dalka inay waxa jirana markuu si hoose dadka ula sheekaysto waxa soo dhan madaxdu way sheegaan wax ra'yiyo ay ku leeyihiin male waa loo soo qoray warqadihii bayna fuliyeen waxa taladii dawladnimada baarlamaanka iyo golihii wasiirada ee dhisnaa ee dadka Soomaaliyeed ay ku aamineen inay ku meel gaarka uga baxeen oo dawlad rasmi ah la gaaray oo dawladdaasi rasmiga ah iyadu howlaheeda intay la wareegto ay doorashada sanadka 2016 ay gaarsiiso markay ku fashilanto iyadii la kala mashquuliyay oo saddexdii sano la soo dhaafay buuq iyo qayle iyo khibrad yari iyo way aragnimo xumo soo wajahday madaxdii meesha joogtay iyo ishaysad dhexdooda markii lagu mashquuliyay markii u dambeysana qorshe loo soo diyaariyay madasha wada tashiga la yiraahdo madasha wada tashiga dusha looga soo tuuray waxa la laalay baarlamaanka qaranka dowrkiisa waa la laalay yaa marjac noqonaya way ku qorneed warqadihii soo baxay marjaca waxa noqonaya ajnabiga noqonaya dawladaha iyo safiirada ajnabiga ayaa wixii la isku qabsaday iyada marjac nooga noqonaya hay'adihii dastuuriga ah ee dalku lahaana banaanka la dhigay golihii wasiiradii ambassadore waxa shiray dad Soomaali ah madaxdii gobolada golihii wasiirada madaxtooyadii ra'iisul wasaarihii guddoonka baarlamaanka xildhibaanada baarlamaanka ka tirsan waxay soo qoreen ama ay soo saareen in ay wax uun ku heshiiyeen rabaanna inay horey u wadaan in la gaaro doorasho 2016 sidee ku cadeynaysaan in qorshihii la soo bandhigay iyo warburtiyeedka ka soo baxay shirka ay afar safiiro ajnabi ah ay soo qoreen waxaan ku cadeynaynaa waxa weeye ilaa hadda xataa madaxdii waa la ogaa saddexdii bari ama afartii bari 2019 iyo 2021 inta u dhaxaysay wixii buuq madaxtooyada Soomaaliya shirku meeshu ka socday iyo dowrka ay ku lahaayeen safiirada ajnabiga ah way cadaayeen inay hadba kii xanaaqa ay lugaha soo qabanayeen xataa la diiday xamar in la yimaado dadka qaar kood shirka ka qayb galaya oo stakeholderska kamid ahaa oo madaxdii gobolada kamid ahaa inay diideen xamar in iyagoo jajuuban oo madaxa la hayo in halkan la soo istaajiyo marka guud ahaan dadka fadhiyay oo Soomaalida ah iyo dadka fadhiyay oo ajnabiga ah iyo safiirada iyo hay'adaha kala joogay waxa badnaa dadka ajnabiga ah badnaa shirkana in iyagu ay soo curiyeen maamulayaashii way dadkan waxaan ku aaminay inay noo maamulaan gobolada iyo dawladda dhexe waxa iska leh dowrka siyaasadda iyo jaangooyntooda golaha wasiirada guddi ka tirsan hadayba wada tashi tahay fiiri waxa meeshan la leeyahay waa madal wada tashi yaa wada oo 10 wasiir intaas oo xildhibaan ay kamid yihiin talada wada tashigan ka soo baxday yaa loo celinaya hay'adihii loo celin lahaa haddana waxa la yiri wixii la isku qabsado iyo korjoognimo iyo isku keenkeenida iyo go'aamada safiirada ajnabiga ah iska leh marka midda aan haysanahay waxay tahay oo meeshan cadeynaysa inaysan ahaan waxaan wax Soomaali ay wadato waliba ay ficnaan lahayd yaareed waan ku tamanin lahayn inay noqoto madasho madal purely ama iyadoo dhami Soomaalidu ay gacanta ku hayso waa madash waxa weeye hay'adii waxa lagu laalay madashan samaysankeeda waxa lagu laalay horta go'aano weyn kama soo baxayaan oo isqabqabsigooda marka u dambeeya waxa u kala dabqaadi doona safiirada ajnabiga u kala dabqaadi doona Soomaalida gudaheeda hay'adii sharciga ahayd oo baarlamaanka ahayd oo la rabay in golaha wasiiradu iyagu ay wada tashi la sameeyaan gobolada guddi ka tirsan golaha wasiiradu inuu aado gobolada axsaabta siyaasiga qaybaha bulshada civil society-ska kadib lagu soo celiyo wixii halkaasi ka soo baxay baarlamaanku uu ansixiyo kadibna wixii baarlamaanku ansixiyo halkaas 2016 ay noqdaan waxa ka dhaqan galay doorashada qaabka loo galiyay waxa soo dhan hadda waxa soo dhan ma jiraan meel loo noqonayo male waxa loo noqonayana waxa weeye waa safiiradaas marka waxaan leenahay dawladani halkii shay oo xil saarneed oo ahayd inay ka
ay keento wax Soomaaliya leedahay oo 2016 yimaada way ku fashilantay waxay noo celisay 2012 iyo 2014 baarlamaanka Soomaaliya oo xaqii ama halkii loo laaban lahaa waxa ka dhex taagan ama ka dhex aloosan mooshin madaxweynaha laga keenay iyo guddoonka baarlamaanka oo aad ugu daalay sidii uu u maareyn lahaa mooshinkaas ama uu dhan ugu ridi lahaa mooshinkaas isagu ma carqaladeyn karaa qorshaha lagu rabay in 2016 lagu gaaro idinkuna mowqifka idinkaga aadan oo maxay isaysadka xildhibaanada gudahooda ka jira runtii waa ayaan daro xildhibaanadu waxaa lagu bilaabay abaabul madaxtooyadu ay lahayd ayaa lagu bilaabay fowdada baarlamaanka ka dhex jirta sanadii 2013 aakhirkeedii markii ra'iisul wasaarihii dalku uu lahaa oo Cabdi Faarax Shirdoon lagu abaabulay kadib markuu awaamir maaragtay iyo qaab madaxtooyadu si ay wax u rabtay markii laga waayay oo si qaran ugu fakray waxa lagu abaabulay xildhibaanadii inay ridaan waa la riday haddana ra'iisul wasaarihii kale yimid ba haddana lagu abaabulay dadkii marka abaabulkaasi gali jiray ama u bartay amaba fowdada sababay fowdada baarlamaanka gudihiisa institutionkaasi inuu noqdo institution dalka u dhaxeeya institution sharciyada dhiman oo axsaabtu ay ka mid yihiin oo gudiyada tirada badan oo dhowr iyo 10 ugu qoran dastuurka inuu soo saaray ahayd waxa ka cuuryaamiyay madaxtooyada markii dambana ugu dambeeyna madaxtooyadu ku soo jeestay waa ayaan daro runtii aad baana uga xunahay laakiin wax kasto gudaheena ka jira waxaan aaminsanahay wax la dhameyn karo inay yihiin xataa dadka Soomaaliyeed oo uqaashay wax garadka ku soo bixi lahaa xildhibaanadeena daday matalaan ugu dambeyn waxa weeye waa wax Soomaalinimo loo dhameysan karay laakiin in hay'adaas la yiraahdo way isaysataa sidaas awgeed anay idhiftay madaxweynaha inta yiraahdo inuu inta baabi'iyo madal wada tashi iyo dawladda iyo safiirre iyo inay gacanta masiirkii dalka ay ku dhigaan runtii ayaan daro weeye waana midaas xildhibaanadu way saysan karaan xukuumaddu way saysan kartaa waa wax Soomaalida dhexdeeda maamul goboleedyada dawladda dhexe way saysan karaan iyagay u dhaxaysaa laakiin in taladii oo dhanba gacantii laga qaado waa mid aan ka digayno runtii qeylada tirada badan golihiina axsaabta Soomaaliyeed waxaad u badan tihiin ama intiina badan ba ay tahay rag siyaasadda Soomaaliya horey loogu yaqaanay oo xilal soo qabtay haddana waxaad ku hadlaysaan afkii shacabka Soomaaliyeed hadalkiina marnaba kama marna inaad shacabka ku soo celisaan ma la dhihi karaa idinku kama duwanadiin dadka xilalka hadda haya waxaad raadinaysaan wadadii aad ku soo gali lahaydeen talada iyo xukunnadii ama jagooyinkii aad ugu soo laaban lahaydeen waa maasan tahay waa qofka Soomaaliya qof kasta Soomaaliya waxa ku soo dhacay waxa weeye qofku talo waa qaban karaa xil waa hayn karaa waana ka digi karaa laakiin taas macnaheedu maahan inuusan talada Soomaaliya waxba ku lahayn annagu hadda muhiimaddu waxay tahay waxa soo socda inaan ka mid noqon doono iyo wixii hore inaan ka mid ahay waxa ka muhiimsan waxa aan sheegayna ma yihiin wax waaqica Soomaaliya ka turjumaya wax dhabaho aan dul taaganahay oo mustaqbalkeena iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed runtii dumis iyo mugdi ku wada ma yihiin taasaan ugu muhiimsan laakiin qofku xilna waa heli karaa waana ka tagi karaa wax hadda aan ka caraysanahay xilaliyana ma jiraan waxaan u gubanaynaa runtii markii la shaqeynayana dadka shaqada maaragtay siyaasiyiinta oo hadlayana markii la shaqeynayana dalka si daacad ay u shaqeynayeen haddii ay noqoto inay dib ka yimaadaanna si daacad ay ugu shaqeynayaan laakiin hadda xaaladdan waxaan leenahay annagu hadda ma wada dhaliilayna dawladda Soomaaliya waxaan leenahay doorkeedii ayay hadiyeysay markay fashilantay oo aragti lagu badbaadshay hiigsiga 2016 aragti markay ka weyday ayay dawladnimadii oo dhan laalaabtay gudoomiye Jawaarina waa ka nabadoonka isku bedelay inta sharcigii oo dhan ka tagay nabadoon isku bedelay dawladdiina waxay tiri baarlamaanka iyo golihii wasiirada waa laalaabno wasiirka ka imaanaya gobolka iyo wasiirkii dawladda dhexe iyo madaxweynihii oo ag fariisanayaan waa isku talo golo wada tashi waa la yiraahdaa midda aan leenahay waxa weeye dib ha loo soo noqdo waxaan nahay shacab dawladdii difaacaya shacab dawladdii dhexe iyo dadkan la rabay inay isku hayso dadkii difaacaya annaga hadda qareenadii dawladda ah waxaan aaminsanahay dawladdu inay shacab noqotay axsaabta siyaasiga ayna hadda doorkii dawladnimada sababtoo tahay dawladnimadaasan la kala dhaxlayaayo dadkana kala celinaysa iyadaana la wada leeyahay waxaa la isku haystaa sida aad sharci u tihiin haddii aad axsaab siyaasiya tihiin maadaama sharcigiina weli uusan dhaqan gelin ama baarlamaanku uusan ansixinin iyada lafteedu miyaysan shaki gelinaynin inaad matali kartaan axsaab siyaasadeed ama aad tihiin dad shakhsiyaad siyaasiyiin oo uun meel uun ku kulmay waa mahadsan tahay waa horta
axsaabta siyaasiga ahi laba door weeye waxna waa sharciyadii oo baarlamaanka iyo dowladda laga rabo waxna waa in ay ayagu association ahaan iyo jamciyad ahaan ay dadkii u samaysmaan annagu marka dowrkeena waa ka soo baxnay waan aasaasannahay xafiisyaan leenahay xubnaan leenahay garab dhalinyaro haween golayaashii kala duwanaa dhammaan kriteeriyadii xeerka sharciyada ee baarlamaanku hadda qabiil qoraalka ah ee xukuumaddu ay haysato ku dhigtay kadib markay aragtay haddii xisbiyo loo gudbiyo inay danahooda ku weynayaan iyo xafiiska madaxweynuhu annagu waa soo samaysana dowrkeena waa soo buuxinay kriteeriyadaas waa soo buuxinay waxaa laga rabaa marka oo guddoomiyaha baarlamaanka aan uga fadhinaa xukuumaddii waa aragnay inay ku dhegan tahay oo ra-iisul wasaaruhu ugu horreeyay wasiirka arrimaha guduhu hadda sidii ku qornaa bayaanka waxaan uga fadhinaa guddoomiyaha baarlamaankuna ballan qaaday in muddo bila uu siiyey golaha wasiiradu inay uga soo gudbiyaan baarlamaanka hadday kusoo gudbin waayaan in baarlamaanka ay marayso marka annagu ama baarlamaan ha marsiiyo ama xukuumadi ha haysato waxaan u taagannahay in dalkani dalalka adduunka oo kale oo axsaabtu ku tartanto xukunka oo axsaabtu ay barnaamijyadooda dadku ku kala doortaan oo xildhibaan qabiil keenay odayaashii qaaraankii dowladnimada lagu qaybsanayay qaaraan qabyaaladii iyo qabiil lagu qaybsadaan arki jirnay qaaraankii lagu qaybsanayay dowladnimada in laga baxo ayaan u soconnaa waana ku adkaysanaynaa weliba shaaricay u daadegaysaa shaarica iyo dadka ayay u daadegaysaa inaan u daadejinno in xuquuqdii la hortaagan yahay oo hortaagan yihiin dhowr qofood oo raba inay ama muddada kororsadaan ama xukunka badsadaan ugu dambeyn axmed macalin fiqi waxaad isku sharaxday xilka madaxtinimo ee dowlad goboleedka galmudug oo lagaaga guulaystay dowlad goboleedkii waa uu dhisan yahay golo wasiire ayuu yeeshay haddii aad dib u eegto sidee uu ku qiimeyn lahayd xaaladda iminka uu maray wallahi galmudug aad baan uga xumahay runtii meeshay marayso waxaan kaloo ka xumahay in meeshaasi si xorahoo dimuqraadiyadan annagu u tartannay waana u hambalyeena madaxweynaha meesha jooga si sharaf leh iyo karaamo lehna waan ku soo macsalaameynay deegaankii iyo dadkii laakiin waxaan maqlayay oo runtii waayahan dambe dhagaheena kusoo dhacayay oo ah colaadaha ka aloosan ee maamulku uu lugta ku leeyahay ee dowlad goboleedkaasi ay lugta ku leedahay ee aan colaad shabaab lagu qaaday ahayn ee colaad lagu qaadayo dad deegaanka joogay oo reconciliation iyo wadahadal u baahan taas aad baan ugu xunnahay dhiigga daatay iyo midka kale oo maaragtay waxaana ka digaynaa runtii oo aan baaq ka jeedinaynaa nabadeed in arrimaha jira oo ahlu sunno iyo labada maamulka galmudug iyo ahlu sunna oo meesha ka jira inay wada hadal ku dhammaystaan waxooda tan labaad waxaan aad uga xumahay in ahlu sunna oo taariikh fiican meeshaas ku lahayd oo wax fiican halkaas ka soo qabatay intaan galmudug taanay dhismin in lagu tilmaamo waayahan dambe oo golaha wasiiradu shir inta gala yidhaahdeen shiica meeshii joogta oo iiraan ku xiran in dadkii soomaaliyeed waxaan jirin halkaas la keeno oo iyadoo qaraab carabahan looga raadinayo inay noqoto soomaaliya waa mashruuc wasiirkii hore arrimaha dibadda ayaa hees soo jeediyay oo wuxuu yidhi soomaaliya waa mashruuc waxaa weeye dowladnimadiiba qaabkaasi hadda noqotayo mashruuc hadba meeshii wax ka gadmayaan iyo ciddii xoogaa looga heli karo ayay noqotay marka ahlu sunna shiico maahan shaqana kuma leh dad meeshaas joogay caqiidadoodana la yaqaano weeye waxa khilaafaad siyaasiyahoo jira inaan loo gudbin khilaafaad fikriya inaan la geyni in halkaa lagu ekeeya marka galmudug waxaan u rajaynayaa runtii guul xilal horena waad soo qabatay shaksi ahaan iyo xisbi ahaanba ma isku daydeen khilaafaadka goboladaas ka jira inaad xalisaan annagu waxaa weeye mar walbaba baaqaynaas iyo in haddii meeshii maamul baa jira maamulkaasaan looga dambaynayaa aan la gacmayn mayno haddii uu baahi muujiyo waa deegaankeena inuu hagaagaan u socday anugu inuu hadda gacanta walaalkay ku hagaagana waa jecla haddii marka nala kaga baahdo kaalin kastoo aan ciyaari karno oo nala kaga baahdo oo aan ahayn colaad iyo maaragtay isdil diyaar baan nahay haddana waa tegaynaa deegaankii dhuusmareebna waa tegaynaa cadaadana waa tegayaa personally aniga waxaana noqonayaa safiir nabadgelyo oo ka shaqeeyo dadka isku dhaweeya wixii dagaalana al-shabaab baa deegaankii inta badan haysatee in halkaa lagu wajaho labada dhinacba aysan qoryahooda iyagu hadda isku soo wajihin wixii jira oo khilaafaadana inaan lagu dhammeeyo qaybna haddiina lakaga baahdo labada dhinacba inaan u noqono dad dhexdhexaad ahoo dhexdhexaadiya wax hal daqiiqa ka yar siday doontaba ha noqotee 2016 waxaa la filayaa in doorasho madaxtinimo ay Soomaaliya ka qabsoonto ma isku soo sharaxi doontaa ama ka mid noqon doontaa dadka xilka madaxtinimo isku soo tahay weli ma go'aansan xisbi waan nahay waa institution qofku geeyaa meeshaas tagaya
وما سنت aad u mahadsan yahay ambassador Axmed Macalin Fiqi oo ah xogayaha guud ee xisbiga Daljir isla markaana xubin ka ah golaha ay ku mideysan yihiin axsaabta Soomaaliyeed waxa uu si toos ah igula sugnaa stuudiyaha Universal ee magaalada Muqdisho isaga oo u waramayay barnaamijka dabagalka wararka وهاجاج داود يال جبا برامج كذا بقولك ورركا أينو إسلا سو قارني برامج كأنيقو على نورها يا سعودي ريي هل كان إذا كجسو جدينا يي برامج كا وح فرسمين يي خالد مكي حاج بنادر يو عبد الحميد كرساي سيدو كلا عبد الله مدير أيا سيدا عدد أهيد بساتلايت كلندن نجسها إذا يي أنت عن هبين دنبه سعد الجيس كأفريقيا مركا يسوع قارتو طبعا كفي نمو أنو كل مدوننا حان إذا كجتجينا نبتقليه